barnaamijkeena waxaynu ku bilaabaynaa maanta xaaladda magaalada Gaalkacyo waa sidee ciidamada Puntland waa tii ay ku hareereysnaayeen ciidankii BS ee ku jiray garoonka maxaa ka soo kordhay magaalada Gaalkacyo maxaa ka jira in saraakiishii BS qaybo kamid ah ay isku dhiibeen ciidanka Puntland xogahaas iyo xaaladda Gaalkacyo iyo guud ahaan Puntland waynu isla eegaynaa iyo dhaqdhaqaaqa dhinaca galmudug ka socda oo ay ka wado dawladda waqtigeedii dhamaaday qodobkaas waa qodobkeena koowaad qodobkeena labaadna waa ceebtii Kambaale ka dhacday iyo shirkii gabdhaha loo diray ceebtii Kambaale ka dhacday iyo shirkii gabdhaha loo diray ayaan asna faahfaahin doonaa gabdhuhu waa kuwama gabdhaha aan idiin sheegaya waxaa ka mid ah gabadhii uu Xasan Sheekh dhalay iyo taliyihii ciidanka xoogga oo nin abgaala laakiin nin ah iyo laba gabdhood oo kale iyo safiirka iyo ceebtii Kambaale ka dhacday ayaan ayaduna faahfaahinayna jaalayaal soo dhawaada qodob saddexaadna haddii aan awoodno waa ku dari doonaa Xasan oo qalbadu jabtay oo ay ku jabtay ficil uu Axmed Madoobe sameeyay ficilka uu Axmed Madoobe sameeyay maxay tahay ayadana waa eegi doonaa waa arintii Kismaayo ka dhacday soo dhawaada jaalayaal muuqaalkan gacanta saara leegareeya fageeya waxba ha sheer gareynina laakiin leegta dhac ku si waxaynu ku bilaabaynaa xaaladda magaalada Gaalkacyo waa ay degantaa maanta dhinaca galmudugna doorasha ka socota dhinaca Puntlandna aad bay u degantahay dhawaqii xabadaha oo sida xoogga loo maqli jiray maanta lama maqlayo Puntlandna guul kale oo aan caadi ahayn ayay ka gaartay dhinaca dawladda damjadiid waxaa goordhow isku soo dhiibay ciidamada Puntland ee Gaalkacyo jooga saraakiil sarsare oo ka tirsan BS gaar ahaan BS-ta ku go'doonsan garoonka diyaaradaha magaalada Gaalkacyo saddex sargaal oo ka tirsanaa ciidankii BS ee calooshood u shaqaystayaasha ay u shaqeynayeen Xasan ee Gaalkacyo ku sugnaa ayaa isku dhiibay ciidamada geesiyaasha ee Puntland walina waa lagu hareereysan yahay xerada ay degan yihiin afarta jahaba ciidanka Puntland ayaa ka jooga waxay wataan ciidamada Puntland mikrofoono iyo droonisyo ayay wataan ay ku jeekibayaan waxa gudaha xerada ka socda iyagoo irdaha xerada la taagan mikrofoono ay uga codsanayaan jamhadda halkaas Xasan ku xareystay inay isdhiibaan ama ciidanka BS hadba sidaa u taqaanaan inay isku dhiibaan ciidamada Puntland ayaa laga codsanaya saacad walba iyo sikin walbana koox ayay isku dhiibayaan qorshuhu wuxuu ahaa inay Puntland awood ku soo afjadho oo maaragtay ciidanka la weeraro laakiin shaxda in markaan la bedelay ayaa moodaa oo cadaadis la saaray kadibna laga codsaday inay isdhiibaan oo koox ay isku dhiibaan muddada la qabtay inay isku dhiibaan haddii ay dhammaato xabad baa lagu bilaabi doonaa laakiin iyagoo yaraaday oo koox yar ah ayaa xabad lagu bilaabi doonaa xerada BS ee Gaalkacyo maxaa ka dhacay waxaa saamaysay warqad ay soo qoreen odayaal beesha Bahdir ah niman la yiraahdo Bahdir Rooble oo Cismaan Maxamed nimanka qardha degan ah ayaa warqad soo qoray maalin dhaweyto warqadaas ay soo qoreen nimankii Bahdir Rooble ee qardha deganaa ay soo qoreen saameyn weyn ayay ku yeelatay ciidankii BS wax weyn Puntland oo ay doonayeen inay ku dhibaateeyaan wax weyn bay u tartay maxay u tartay Puntland maxay u dhintay ciidankii BS warqadii odayaashii Bahdir ay soo qoreen Puntland waxay u tartay intaanan idiin sheegin waxaan rabaa inaan idiin sheego waxa ay u dhintay ciidankii BS warqadda waxaa ku qornayd in ciidanka BS ee ku jira xerada ay yihiin niman Cismaan Maxamuud oo Bahdir ah marka sidaa awgeed haddii la weeraro in Bahdir la weeraray inay ka dhigan tahay iyagoo uga digay beelaha Puntland inaan la weerari karin arrintaa markay dhacday ciidanka marka xerada ku jira boqolkiiba 80
وعمر محمود نمكي عمر محمود waxay dhahan maxaa meesha ka haynayna maadaama ciidankan ay yihiin la yiri waa ciidan bahdira oo Ismaan Maxamuud ah lamana aadi kare la yiri waranagu ma bahdir baana ma Ismaan Maxamuud baan maxaa meesha ka haynayna aan isaga tagno waxaynu ku dhimanayna waa waxba nimankii Cumar Maxamuud markii horin bay u duseen qaybta hadda joogta xala waxa dhacday niman Cumar Maxamuud xirada ku jira oo qoryo waaweyn watay in qoryihii waaweynaa laga qaaday oo laga baqay inay la fakadaan marka meeshii waxay ku soo urudhay in nimankii Cumar Maxamuud ay isaga baxaan warqadda marka maxay Puntland u tadhay Puntland waxay u tadhay warqaddii culayskii iyo ciidamadii isku dhex jiray inay u kala baxaan in ciidankii isku dhiibaan in culaab fara badan ay Puntland ooga maaragtay ooga degto ay arrintii sababta odayaashuna wax wanaajiyay lahaayeen laakiin waxbay xumeeyeen oo shaabad bahdir roobla ayay ku dhufteen ciidankii BS ee xirada ku jiray nimankii Cumar Maxamuud oo meesha joogayna waa isaga baxeen Puntlandna waxay leedahay waris dhiiba Cumar Maxamuudna waxay leedahay maxaan ku dhimanaa marka nimankii horta sidaas isku dhiibayaan ciidanka xirada ku jirana dhammaan telefoonadii waa laga aruuriyay maxaa laga cabsanayaa inay isdiibaan qoryihii waaweynaa waa laga aruuriyay maxaa laga cabsanayaa inay la fakadaan ciidan sidaa loo ilaalinayo rag ma iska dhicin karaa waa maya xabaddu hadday bilaabato nin walba jaanis buu helayaa hortiisu u dhaqaaqaya anaa kugu dhaaranayo cid diriraysa inaysan jirin hal xabada hadday bilaabato nin walba xabadaasu jaanis ka raadinaya gacantuu taagaya waadna arki doontaa xaaladda horta gaalkacyo sidaas weeye muddadii ayay Puntland badisay waxay dhaheen ilaa xuska aanu iska soo dhammaysano qolada galmudug ha dhammaystaan doorashadooda intaa marka ay dhacdo xusku soo gabagabayno 1 August wixii ka dambeeya inaan xabad ku bilowno xasan wuxuu leeyahay mataqaan intaan xuska la gaarin Puntland hal ay qabtuu leeyahay gacanta lagu dhigo gaalkacyo gacanteeda la soo geliyay shalay maxaa la sameeyay waxaa la sameeyay ciidamadii joogay meeshan la yiraahdo ii sheeg xanan buure ee galgaduud joogay waxa uu tagay qaali waa la diyaariyay waxa la yiri waa la idin wadaa oo Puntland baa la idin geynaya nin aqli badan oo ciidanka ku jira oo mareexaan ah baa meesha ka hadlay wuxuu yiri nimayow annaga argagixiso ayaa naloo tababara iyo inaan dawladda ciidan u noqono nalooma tababarin inaan Puntland weerarno nalooma tababarin mideeda kale ciidan diyaarsan minihine Puntland waa dawlad awood leh ma waxa ku yiri ma waxa rabtaan buu yiri sidii ciidankii argagixisada oo galay meesha la yiraahdo Puntland galay loo soo qabtay oo ay Puntland gacanta ugu dhigtay ma in loo qabtaa rabtaan hadhowna nagama sii deynaysaan Puntland waa dawlad quwad leh ciidan tababar leh diyaarada leh technical diyaarsan isbitaal leh dad isku tiirsan ay joogan dawlad sahal lagu gali kara ma annagana wiilal yar oo hadda tababareen oo aan dagaal galin oo aan xabad galin baanu nahay madab baan nugu shubaysaan buu madab baan nugu shubaysaan buu waxna dhabtis waa nin aqli leh annagu haddaan tababaran waa ciidankii xanan buuri maxay leeyihiin war haddaan tababaranay bay leeyihiin weli qori maanan qaadan Puntland waa geed kulay dab weeye holac weeye Puntland ma aadi karno ma wajihi karno weli xabad meelay ka dhacaysa maana arag haddaan nala tababara meel ka jilicsan nageeyeen mise sidii nimankii argagixisada ahaa oo ay qaban jireen oo kale inay noo qabtaan bartaan oo timaha nagala xiiro ay maxkamadna soo saara oo dhaqan celin ay noo see wax wada naga taayay dhaheen anagu Puntland ma aadi karna meelahan dhow noo dira oo aan ku soo tireerin qaadan oo aan ku tababar qaadan oo anagoo dagaal iyo macnihiisa fahansan oo diyaarsan oo alla ilaahay dhamacda kulul ee xabada u dul qaadan karna nageeyay laakiin hadda iminka Puntland ma wajihi karno waa ciidankii xanan buur Puntland ma wajihi karno annaga argagixisaa noo tababarnay ayadaan aad meel ka jilicsan nageeyay nimankaas dabaabaad diyaarado wax waa u dhameystiran
hadday gacanta nagu dhigaana nama sii dayn ka dhaanbay laakiin baxar hana gelinin haddiinaan qaban karin hana gelinin haddiinaan sii dayn karin ciidanka horta intaasay dhaheen intaa marka laga yimaado wixii ka soo kordha gaalkacyo waa ogaanaysaa inkastoo Puntland looga dareeray dabaaldega 1 Agosto oo ahayd aasaaskii Puntland ceebtii Kambaalo ka dhacday ayaan iminka isla eegi doonaa shirkii ka furmay magaalada Kambaala oo ay joogeen saraakiil Soomaaliya loo diray baa la yiri shirkaas waxaa ka qayb galay taliyaha ciidanka xoogga dalka nin la yiraahdo ina qanyare oo safiir ah oo taliyaha ciidanka xoogga oo abgaal ina qanyare oo safiir ah oo abgaal gabadha Xasan Sheekh Maxamuud oo wax allaala waxay ku magacaaban tahay aanan aqoon maanta ayaa sidoo kale ka mid ah sidoo kale gabar kale oo la taliya oo Xasan Sheekh la sheegay oo iyadana abgaal ayaa qayb ka ah anigu marka waxaan u baxshay safarkii gabdhaha oo uu wehelinayay taliyihii ciidanka oo gabdhaha walaalkood ilaa walaalkood waa yahay oo wanin abgaal moogta iyo laba nin oo kale dhammaan marka taliyaha laga reebo ciidanka inta kale waa shacab sirdoon ciidan iyo xogaha amniga iyo amni kama faalloon karaan kamana hadli karaan amnina shaqadooda ma mid xil soo qabatayna ma jirto marka Soomaaliyeena matalayaan Soomaaliya dhinaca amniga ku matalayaan horta Xasan waa ka wajigaas la wajiga cuqubada ku dhacday nin kale weey oo gabdhaha aragtay dhahayo dadkan matala oo raba inuu dadka horgeeyo oo yiraahdo adinka idin matala ninka weey inaad dadka ka barataan oo aad ogaataan dhagartiisa ayaan rabaa gabdhahaas Soomaaliya matalay meeshina waa lagu soo coobay anaan baana dhagaha lagaga dhufto Kambaalo horta taasa ka dhacday dhinaca Kismaayo Xasan xalay sokorti waa ku kacday dhabankiisa dhulka ma dhigin walwal iyo walaac baa ku furmay waxa soo dhanna waxa uu sababa tilaabo oo shala qaaday Axmed Madoobe maxay tahay tilaabada ninkii Axmed Madoobe ahaa Mareykankii uu inta diyaarad soo shidaaliyay yuu keenay magaalada Kismaayo heshiis buu la saxiixday waliba heshiis aan caadi ahayn oo caalami ah ayuu la saxiixday markii uu la saxiixdayna wuxuu yiri waxba Muqdisho marinine wadanka dawlad kama jidhe iska taga waa ognahay bay dheen waxay ku noqdeen Nairobi waa markii ugu horeysay oo wafdi inta la eg intay Soomaaliya yimaadeen iyagoon caasimadda marin gobol intay tageen isla gobolkii ka noqday arrinta walwal badan iyo cabsi badan ayay ku abuurtay Xasan sidoo kale nimankii shalay dhibaatada sameeyay qayb kamid ah iyo nimanka xalana jooga ayaa maanta u yeeray Xasan iyo tiimkiis oo la shirayo xalana ugu tagay waa nimankii waxa aragtay sameeyay ayuu xalana ugu tagay oo la shiraya Xasan horta waa ninka qab male sharaf male aan wax cuno mooyee aan wax celiyo kuma jirto cilmi kale kuma jiro waa 70 jir cilmi iyo aqli aan lacag ahayn aan lahayn Soomaaliya la badbaadsho